dhegaystayaal saddexdii barnaamij ee ilaa haddeer aydun maqasheen waxaan ku soo qaaday saddex xab oo maansayahanadii hore ee Soomaalidu kolba tixaha ay maamiyaan ay u xambaarin jireen kuwaasoo kala ah gabayga geeraarka iyo jiiftada oo masafana loo yaqaan si kooban waxaan barnaamijyadaas ugu soo qaaday saddexdaas xab mid waliba tilmaanta uu gaar ahaantiisa u leeyahay iyo waxa uu labada kale kaga duwan yahay waxaa haddaba la soo gaaray markii aan sheegi lahaa saddexdooda iyo dhammaan wixii maanse ku abtirsadaaba tilmaamaha ay wadaagaan kuwaasoo ah kuwa ka soocaya hadalka caadiga ah ee ay dadku goor kastaba ku hadlaan waxna ay isugu gudbiyaan tilmaamahaas waxaa ka mid ah kow waa qaafiyadda oo ah eray ama laba eray oo isku xaraf ka bilowda meelisyada tixda oo dhanna ku soo noqnoqda meelo u astaysanna ka gala haddiise ay dhacdo oo erayada sidaas isu raacsan meelisyada tixda laga waayo deelqaaf ayaa lagu tilmaamaa iyaga oo kale qofkii tiriyana maansayahanada laguma daro aan kolka waxa uu deelqaafku yahay tusaaleeye waxaydun dhegaystayaal ila malaysaan muuqaalkan soo socda waa beel reer miyi ah oo uu nurkii u samaaday waa gu'aaran ah hawkarkii jiilaalka ayaa haddiiba laga raystay daaq iyo biyaba agagaarka aqalada ayay xooluhu ka dhargaanoo waayeel iska daaye carruurtaba looma diro ballidu way wada ceegaagtaa qorxadhaca tan iyo waa berigana cida raha ayaan laga gam'i karin sidaasoo ay tahayna cirku weli wuu cusub yahayoo indhawaalaba gabbal diiran ma lahayn geel lo iyo ariba xooluhu darar bay candhada la qaadi laayihiin sidaa darteedna inta fiid hore la maaro ayaa madadaalo loo faarumaystaa doob iyo gashaantiba dhallinyaradii oo hawshii ka dhammaatay waayeelkii dhalayna iska ilaalinaysa ayaa mid iyo kooxba u dhuumata waxay u kala hormaraan cayaaraha haddiiba la qabtay ee sacabka iyo jaantaba leh dhinac walbana ka yeeraaya maaweelo xodxodo iyo muraad kalaba halkaas bay ilaa waa beriga ku sugnaadaan dabadeedna waa soo dhowaadka ayuu mid waliba reerkooda ku soo duldhacaa iyaga oo daal iyo lulmo bastood la ah dhinaca kale odayadii iyo garmadowdii reeraha ayaa iyaguna gole si wanaagsan loogu kashkaashay looguna dugsiiyey ku soo ururay kuwan madadaaladoodu cayaar iyo sac ma ahee waa suugaan fadhi la isugu tabiyo waa gabay iyo geeraar dhagaha loo raariciyo oo maansayahanada reeraha midkood uu ragga ku maaweeliyo ama waa kala hore maanse la tiriyey oo hadduu goobta fadhiyo gabay xambaar yaqaani uu odayada ku jalbeebiyo dabadeed sidii loo sheekaysanayay ayaa meel gees ah waxaa ka kuurkuursaday nin goobta wax ka fadhiyey kaasoo ku yaboohay tix uu sheegay inuu waa hore bartay inuu ragga u mariyo bal mari ayaa lagu yidhi anigu gabyaagii tiriyey ma aqaan kollayse wuxuu ku ammaanayay haweenay uu rabay inuu guursado ninkiibaa wuxuu tixdii ku bilaabay markaa lagumood madiixoo dhashiyo sidigti dhoor wiile lagumood mareeru egay dahabki baariise magaalada berbera maalintii uunku wada joogay lagumood hilaacii mug yidhi ee yaabka loo go'ay baddoo murugtay minawaaradoo buunka wada yeeshay oo ay mawjaduhu wada qarxeen waa wax cara weyne lagumood tiriiggii cadmeed walaalacdiisiiya lagumood magaalada bumbay lacagtii tiiltiila lagumood muluukiga hablaha nimanka reer suur mar keliya isagoo aan dhammayn ayaa qosora la wada dhacay oo looma qarina deelqaafkii uu ragga la hor yimid ninkii lagu ceeb mid ay kaftan lahaayeen oo hareertiisa fadhiyey ayaa kula bowday war hebelow gabay ma taqaanide ragga gabayadiisa ha ka dilin deelqaaf iyo deelqaaf la'aanba haddii aadan kala aqoon maadaa iga badiyo iyo anigaa kugu dhaama muran yar baa xigay dabadeedna kii dambe ayaa la weydiistay hadduuba isagu kaa hore ka badiyo inuu tixda mariyo isna waa isku kalsoonaaye qayb ka mid ah oo aan deelqaaf lagu ogeyn ayuu mariyey isagoo weliba arar ka hormarsaday oo yidhi horta gabayga cabdigahayrkii ina warsamo baanji ahaa ayaa tiriyey gabar uu guurkeeda rabayn uma tirine gabar uu guursaday oo u aroos ahayd ayuu ku ammaanay kuna soo dhoweey suu muxuu yidhi ayaa la weydiiyey markaasuu yidhi kolka horeba guur waa milgiyo maarsi kala waaye ragga qaarsi uma meel dayee wayska mehershaaye anna waxaan ka maydhaa halkaan lagama suugaynay haddaan lala mashaawirin tolkaa adiga oo maad leh oo lagama maarmee tashiga
odaya loo miirin ninkii keligii maalootiyaa meel xun u halis lagu mood madiixoo dhashiyo sidigti maadhiinay lagu mood mareeru egay dahabkii maarsey ee magaalada berbera maalintii madasha loo joogay lagu mood hilaacii mug yidhi ee muuqday laba jeer ee baddoo murugtay minawaaradoo macallinkii dhoofshay oo ay mawjaduu wada qarxeen moolka laga yaabay lagu mood tiriigii cadmeed muxubbadiisii ee lagu mood muluukiga hablaha madaxda reer suure madowga iyo casaanka isku jira sida masciideedka in la mara madow iyo caddaan muumin iyo gaalo sida geedka maawarada waa muunad gooni ahee lagu mood dhirtii maacaleesh midabadeedii iyo lagu mood magaalada bumbay macawisii yiire lagu mood muraayadan lahayn mirarku waa ceebe halkaa markuu maraya ayuu inta ku margaday sii wada waayey markaas buu inta ragga u cudurdaartay ku yidhi gabayga intaas baan ka hayaa wuuse ka badnaaye waan kala iloob waxaa dhegaystayaa la yaab leh reermiyigii hore ee soomaalidu iyaga oo aan u xeraysan iyaga oo aan dugsiya loogu dhigin iyaga oo aan waxna qorin waxna akhriyi jirin inay haddana judhiiba kala garan jireen tixda deelqaafku ku jira iyo midda hagaagsan ee u tirsan si waafaqsan maansayahanadii hore xeerarkii ay maansada u dejiyeen ha yeeshee aan weligood meelnaba lagu dhigin tilmaanta labaad ee gabayga geeraarka jiiftada iyo dhammaan wixii maanse ku abtirsadaaba ay wadaagaan waa miisaanka oo isna la'aantiis uu meelisku noqonayo ku jaban intii la rabayna ama ka dheer ama ka gaaban markaasoo kalena waxay ninka tiriye ku xaman jireen hebel waa sheekeeye ma gabyin oo ma geeraarin jiiftana ma tirin kasakow qaafiyadda iyo miisaanka oo tix walba curinteeda lama huraan u ah waxaa iyaduna jirta tilmaan saddexaad oo maansada soomaalida ku mataansan taasoo ah luuqda oo qayb waliba ay leedahay middeeda u gaarka ah ee loo yaqaan dhabtiina waayadii hore maansayahanada aan tixahooda ku luuqayni aad ayay soomaalida dhexdeeda ugu yaraayeen haddiise aanu gabyaagu maansadiisa ku luuqayn karin si uu damco inuu dadka u gudbiyo cudurdaar ayuu ka hormarin jiray wuxuu odhan jiray ragow maanta fahmadaraa i haysa oo luuq ma tahli karee ha la ii dulqaato markaas buu sidii hadalka caadiga ah tixda u sheegi jiray waxayba maansayahanada qaarkood lahaayeen luuq u gaarahoo dadweynuhu kolkay maqlaanba ku garan jireen sida cali cilmi afyare cabdilaahi suldaan jamac cadde cali xuseen xirsi xaashi cali bare cabdi iidaan ibraahim mire oo fiqbiraale loo yiqiin iyo qaar kale dhegaystayaal waa run oo shuruudaha tirinta maansada lagama maarmaanka u ah luuqda laguma daro sidaasoo ay tahayna wax weyn ayay maansayahanka ugu filan tahay hanaanka waxgudbintiisa ayay luuqda bishaa dadka isaga dhegaysanayana wuu ku soo jiidan karaa kolka uu maago tix uu beryahaa tiriyey inuu cid uun ku saameeyo oo maanka kaga xado soomaalida keliyana ma ahee carabtii horena maansada way ku luuqayn jirtay gabyaagii la odhan jiray xasaan ina thaabit waa kii lahaa taqanna bishicri imaa kunta qaa'ilahu ina alghinaa'a lihada ashicri midmaaru oo macnaheedu yahay haddaad batirinayso gabayga ku heesoo ku luuqee saa luuqdu gabayga waa u dheef iyo dhuuniye dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo joogo waa inoo toddobaadka